warraba fiicantiin khayr badan baan idinku ogahay meel walba joogtaan waa ina cabsiye oo joogta Hargeysa shalay baan kasoo degay magaaladii Hargeysa way isku dhacaysaa waxaad moodaa dadkii oo dhan inay meesha joogaan subxaanallah waxaa la oran jiray ushii cirka loo tuuraa baa la oran jiray qof bay ku dhacaysaa horta waxay iga hortimi oo aan filanayno maaskayga aan iska xidhnahay oo dadkii iska mushaaxiyoon isqarinayo ayaa Fatima Muna my dear friend Fatima Muna YouTuber and good friend basho dhalinyaro soo kaxaysay dhaantada ciyaarta oo doonaysay inay soo dhaweyso laakiin gudihii inay soo gasho waa luuti banaankii bay markaa carruurtii tiri jooga gudihii bay igu soo gashay meeshii bay so kind anigu waa iska xishoodayo bajecli I don't like wax la iga dhigdhigo marka runtii waan khajilay laakiin aad iyo aad bay uga geysan tahay Fatima Muna thank you aad iyo aad baad baahantahay kacado Allah ku barakeeyo sharaftii iyo bilgadaad walaasha la doonayso I really appreciate it and markii waxaan qalansanaa the amazing Kainan, oh brother Kainan. Markii ugu horeysay aanu life isu barano weeye and ambassador hotel baa kula balansanaa gurigii baa dhimo waa libiso diracaya shiidkaaba ku dhacay I love sheet and I sheegay I am just so in love with diruuc shiidka dirac shiida inta badan ma xidho markaan dhulkii joogo laakiin anigu inaan ku xarwadaan ma jeclahay uma quuro inaan meelaha ku joogo diracaya shiidka diruuc shiida way walaashay ii si diyaarisay iyo garbasaarahoodii oo diracaya shiidka iyo garbasaartiisa iyo kaba dacasa ayaa ku aaday Kainan. What a troubadour. He really is a troubadour. Yeah, a legend indeed. Well, legend Kainan. Allah ha barakeeyo. Amazing human project baan ka wada hadlaynay marka meetingkayagii wuu iska dheeraadayba so amazing Kainan waa extremely intelligent human being meel fog oo qoto dheer wax ka arka
inaan kaa waxaan israacdaa haddii aanu hayn qof aad iyo aad u smart oo real ah, very authentic human being, maanta they're one of the biggest superstars buu ahaan lahaa. He refused to be molded and manufactured. In laga dhigo qof aanu doonayn, because in the industry baarti music iyo Hollywood sida iyagu doonayaan bay doonayaan inay kaa dhigaan. That's why waxaa ku kalifa dad badan inay faraxsanaan oo drugs qaataan oo hadday doonaan overdose sameeyaan. Kainaan refuse all of that. He stayed true to himself. Naftiisa sidii originalkii uu weligii ahaa ayuu iska yahay. Very simple, very humble, miskiin, Somali lafta iyo ruuga ka ah. A very kind individual. What an honor to have met him. Wallahi, it's one of the honors of my life. I've always weligay waan admire garay jiray, waan dadka aan dushaa ka ixtiraamay, aan aadka u haweenhay u ahaa. Marka I just adore him. So that was my first meeting yesterday. Marka meetingkaygu ugu horreeyay shalayto with Kainan buu ahaa, maasha Allah. Maanta waa jimce, waa barbaraana baa lagu jiraa oo la iska nasanaya oo la iska hurhurdaa. Bal banaanka aan soo yara ganacsiiyo. حرمكي بربرتاي بستان دركم ميدان بدنسيك كالجعلك حرمكي بربرتاي بيرتي حريتاي براعة في ماديوي وري ليش كبنتاي أحسن هرقيسا كابولي باقي بيرتي حريتاي براعة في ماديوي وري ليش كبنتاي أحسن هرقيسا كابولي باقي سلام باحد وينو كاغت متبدويني ابيه بلد وبريدتيده نبات سمعتان وإلا إرسلات شوقلا شاقلا very quiet. إرسلا بلوة وبايدو كدبيس so beautiful ما شاء الله. مردوان كرقاتشني يعني one of my friends so شوكتا أصحابتي ديو لما شوكتا دي from مرايكن ayaan soo yara wada qadaynaynaa, kadibna gruubaan la shaqeeya hadhowto aan buugga arrimihiisa ka wada hadlaynaa. And I have a busy day, like it's nice to be home. Yeah, there's something special about anigu waxaan ahay dadka rumaysan dhulka Ilaahay oo dhan waa dhulkaaga iyo cid kaa xigta ma jirto. I really love meel walba waan jeclahay dhulka because as a Muslim waliba waad ogtahay inaan cid kaa lahayn because Ilaahay baa meel walba joogaan rumaysanto kaaga dhow waad hoos joogtaa. Marka meel walba maadaamaad Ilaahay hoos joogto cid kaa xigtaa ma jirto. And I'm very comfortable wadankaan joogo oo ku faraxsanahay because ma uu haystaba dee cid iga xigto. Laakiin haddana
markaad dhulka timaado there's something, waa dhulkii hooyo, ciyaar maaha marka la yidhi dhulkii hooyo. There's something magnetic about it. waxbaa jira muddo inuu kugu dhigayo yaa markaan arko siday dhulka u dayaceen ee ay qashinka aanay uga gurayn ee aanay dhagaxa uga leexleexinayn yaa waxaan dhahdaa si dhulka ay haystaan yaa boqolaal qof iga dhigaa waxaa waan kan guri lahaa wallaahi I just wanna kiss the land inaan dhulkadan doonaya ciid ursado. dhulka waa inaynu ula dhaqanaa sidii uu ubadkeena yahay oo kale. waa inaynu tusnaa ixtiraam iyo jacayl. waa inaynu boodhka ka tunaa, qashinka ka gurnaa, qurxisanaa oo hagaajisanaa. waa inaynu ilaashanaa. waa dhulkeeni hooyo. waa inaynu u roonaanaa, diifta iyo dihaalka ka ilaalinaa. We have to. Subhanallah. wadamada kale markaad tagtay dadku qofkii qashin yar hadduu kaa dhaco lagaa daba qaadayo aad baan uga qiirooda wallaahi alcadiim. inaguna aynu abuse garaynayno dhulkeeni, the most beautiful land, dhulkii adduunka ugu qurux badnaayo mix ahaa wax walba saa isu dhafan ayuu ilaahayna siiyey. waa inaynu u roonaana. We have to. خير الدعاء عليك. هلك سنة كجتري وإنه إيه إن شاء الله. The next time خير الدعاء بنسكت ما هنا بدك.